Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa xaadir ku ah jiida dagaalka uu rabo inuu TPLF dagaal culus la galo iyo sidoo kale TPLF u jirta caasimadda 220 kilomitir. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ee ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel ayaa sheegay inuu hogaami doono ciidamada dalkiisa goobta dagaalka laga bilaabo maanta oo Talaada, taasoo talaabo cusub oo cajiib ah iyadoo colaadda muddada sanadka ay ku sii dhawaanayso caasimadda Addis Ababa oo laga yaabo Addis Ababa inay holacdo. 10,000 oo qof ayaa lagu qiyaasay in lagu dilay ciidamada Itoobiya iyo kuwa xulafada ah oo dagaalka kula jira xoogga ka soo jeeda gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi, kuwaas oo u badnaa dawladii qaranka ka hor intaanu Abiy Ahmed xilka la wareegin, maadaama TPLF ay hogaaminaysay dalka muddo 30 sano ah. kadib markii xilka oo Abiy Ahmed uu qabtay waxa dhacday in xilalkii ka wada xayuubshay kabacdina halkaas khilaaf siyaasadeed uu ka dhashay, walow dhibaatada ilaa hadda aysan joogsanin. laga bilaabo maanta waxaan abaabuli doonaa safka hore si aan u hogaamiyo ciidamada difaaca, ayuu ku yiri hadal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka galinkii dambe ee Isniinta. kuwa doonaya inay ka mid noqdaan carruurta Itoobiya ay taariikhdu xusi doonto maanta u kaca dalkeena aan ku kulanno goobta dagaalka. hadalkii ra'iisul wasaaraha 40 jirka oo horay u ahaa askari ma sheegin halka saxda uu aadi doono maanta. afayeenkiisa Bilasiyum ayaa kama aysan jawaabin codsi faalaha uga timid wakaaladda wararka ee Associated Press. hadalka Abiy ayaa yimid iyadoo jabhadda Tigray ay weli ku sii siqayso caasimadda Addis Ababa, iyagoo sheeganaya inay gacanta ku hayaan magaalada Shawarabit oo 220 kilomitir waqooyi bari kaga beegan caasimadda Addis Ababa. waxaa kaloo uu daba socday shir ay yeesheen guddiga fulinta xisbiga barwaaqo ee talada haya oo looga hadlay dagaalka. wasiirka difaaca Abraham Belley ayaa kulan kadib u sheegay warbaahinta dawladda in ciidamada ammaanka ay qaadi doonaan talaabo ka duwan kuwii hore, isagoo aan bixin faahfaahin. waxaa jiri doona isbedel, Belley ayaa yiri. waxa ku dhacay oo ku dhacaya dadkeena xadgudubyada ay ku kacayaan kooxda wax dumisa ee ugu magaca dareen TPLF ma sii socon karaan. ciidamada Tigray ayaa sheegay inay ku cadaadinayaan dawladda Itoobiya inay ka qaado xayiraadda bilaha ah ee saaran 60 milyan ee qof ee gobolka Tigray, balse ay sidoo kale doonayaan in Abiy ay xukunka ka tuuraan. ra'iisul wasaaraha ayaa qoraalkiisa ku sheegay in dalalka reer galbeedku ay isku dayayaan inay ka adkaadaan Itoobiya, isagoo ka dhawaajiyay in dawladdiisu ay fargelin ku hayso beesha caalamka. ergooyinka socda midowga Afrika iyo Mareykanka ayaa sii waday dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu raadinayo xal nabadeed oo waliba wada hadal ku dhisan aan shuruud ku xirnayn oo waliba lagu gaaro xal siyaasadeed oo nabdoon. Abbas Haji oo ah qabiir ku xeeldheer siyaasadda Itoobiya kana tirsan jaamacadda Toronto ayaa sheegay in dad badan ay wali rajo ka qabaan in xal siyaasadeed laga gaaro xaaladda Itoobiya.